السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن داوديال كسو دوادا warbixin gaar ah aynu ku eegi doono shanta iskuul ee ugu yaabka badan adduunka marka aad iskuul maqasho isla markiiba waxa maskaxdaada ku soo degdegaya dhismo baaxad leh oo barxad weyn oo waasic ay ku taalo arday badan ay gurigiisa wax ku baranayso inta badan subaxii iskuulka ay yimaadaan iyagoo xambaarsan boorsooyinkooda ama gacanta ku sita buugaagtooda kadibna guryahooda ku noqonaya duhurkii kadib iyagoo wata waajibaad la soo siiyay iyo sheekooyin kala duwan oo ku saabsan waxyaabihii ay maalinta la kulmeen ee xusuustooda gaarka u lahaa haddaba waxaa jira goobo waxbarasho oo ka duwan sawirka aan ka haysano muuqaalka guud ee iskuulka aadna u la yaab badan waxa ayna warbixinta ku soo qaadanaynaa sidii aan horeba u sheegay 5 iskuul oo ku yaala dunida isla markaasina ka duwan iskuulada caadiga iskuulka koobaad waa iskuulka sixiroolayaasha waa iskuul lagu baranayo sixirka laga soo bilaabo curaafaysiga ilaa sixirka noocyadiisa kala duwan waxa iskuulkan wax ka bartaa arday gaaraysa ilaa 40,000 qof oo habka online-ka duruustooda ku qaata iskuulkan markii hore waxa uu ku yaalay dhismaha magaalada Roseville ee gobolka Chicago gudaha dalka Mareykanka halkaasoo uu deganaa muddo 2 sano ah kadib waxaa loo raray magaalada Salem ee gobolka Massachusetts waana isla magaalada hadda ka hor lagu xiray 200 oo qof oo sixir lagu tuhunsanaa oo loo maxkamadeeyay intii u dhaxaysay sanadihii 1692 ilaa 93 iyadoo magaalada loo aqoonsan yahay magaalada sixirka iskuulka labaad waa iskuulka Brookline iskuulkan ayaa waxa uu qaybsamaa 2 qaybood ama 2 heer oo kala duwan heerka sare oo carruurta da'doodu u dhaxayso 12 jirka ilaa 18 jirka iyo heerka hoose oo ah carruurta da'doodu u dhaxayso 4 jir ilaa 11 sano jirka iskuulkan wax manhaj ma lahan arday kasta fasalka uu doono ayuu ku biiraa ardayda ayaana ah kuwa dejiya qaanuunka iskuulku leeyahay waxaa jira fasalada The Wild and Urban Studies kaas oo ardayda la daawasiinayo barnaamijka caanka ee Daiwa kadibna qodobadiisa ay ka doodayaan macallimiinta iskuulku waa sidii kormeelayaal oo qura imtixaan lama qaado darajooyinna lama bixiyo oo maba jiraanba ardayga waxa la siinayaa waa waayo aragnimo uu noloshiisa caadiga ku maareeyo iskuulka saddexaad ee aynu ku soo qaadanayno warbixinteenani waa iskuulka Philadelphia Future School iskuulkan ayaa laga furay galbeedka magaalada Philadelphia sanadkii 2006 iskuulkan ardayda wax buugaaga ma qaataan taa beddelkeeda ardaydu waxay adeegsadaan computers ama PC computerska waa personal computerska ardaydan waxa xisaabta lagu baraa abiska Windows oo ah application aad ku isticmaali karto mobilkaaga gacanta ee caadiga ah macallimiintu waxay adeegsadaan shaashado smart ah oo ay samuurada kaga maarmaan taas beddelkeeda iskuulka afraad ee aynu warbixinta ku soo qaadanayna waa iskuulka boostejada tareenka ee India kadib markii ay raacday tareen haweeneyda la yiraahdo Interchase Rana ee u dhalatay dalka India iyadoo u socota shaqo waxa ay aragtay arday badan oo tareenka kala laadsan iyagoo dadka rakaabka tuusanaya intii ay iskuul aadi lahaayeen Rana waxa ay ahayd macallimadu waxa ay ka fikirtay carruurtani in ay u baahan yihiin waxbarasho si ay mustaqbalkooda u gaaraan waxa ay halka ka asaasay mashruuc ay wax ka bartaan in ka badan 4,000 oo arday oo gobol kasta oo India degan waxaana halkaas ka dhashay iskuulka boostejada tareenka la magac baxay iskuulka shanaad aynu ku soo qaadanayno warbixinteenani waa iskuulka doonta dusheeda dawladda Bangladesh sanadkii waxa ka dhacay fatahaado waaweyn sidaa daraadeed carruurta waxa ku adag inay iskuulka gaaraan maadaama iskuuladu ay biyo kale noqonayaan sidaa daraadeed si loola qabsado xaaladda daad waxa la sameeyay iskuulaad iyo goobo caafimaad oo webiyada dushooda laga sameeyay si ay marka ay daad yimaadaan aan marnaba loogu dhibtoonin isla markaasina ayna u baaqanin adeegyada waxbarasho iyo kuwa caafimaad iskuulka doomaha waxa uu iskugu jiraa gaadiid carruurta guryahooda lagu geeyo iyo fasal ay wax ku bartaan waxa ay ardayda gaadiidku ka soo qaadaan webiyada hareerahooda waxaana ka faa'iideysta 70,000 oo carruur ilaa markii la aasaasay ee sanadii 2002 guud ahaan intaasi waxaan ku soo afmeeraynaa warbixintii aanu idinka diyaarinay 5 iskuul ee ugu la yaabka badan caalamka waxa idinla socodsiinayay aniga oo Khadar Xaaji Axmed tan iyo inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan xigmaantiin iyo dhamaanteeda waxaan idin leeyahay salaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh